ilaa iyo hadda waxaana soo gaarayo dhaawacu wuxuu gaarayaa sidana soo gaartay oo waaxda caafimaadka inala wadaagtay 269 ayay nala wadaageen dhimashaduna ilaa 104 ayay maraysaa maaragtay intaas ay hadda noola sheegay waxa ilaa haddana 6 qofood ayaan la aqoonsanin dadkoodii ayana waxaan leenahay dadku isbitaalada ha tagaano ha fiiriyaano haday aqoonsadaanna ya ahlan wa sahlan cidii la aqoonsan waayana dawladda hoose mas'uul ka ah ayadaas aasaysa hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan rabaa inaan isu gurmano inaan iskaalmayno inaan iscaawino ayaan rabnaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xalay 8 saac ayuu wuxuu joogay goobtii wax ka dhaceen markaasoo runtii asigoo la murugaysan dadkii wax gaareen ayuu uga tacsiyeeyay uguna dhawaaqay in maaragtay loo gurmado dadkaasi ayuu halkaas uga dhawaaqay wuxuu kale ballan qaaday haday agoon ka tageen dadkii dhintay caruurta ay ka tageen waxbarashadoodana madaxweynaha asiga ballan qaaday oo halkii ayuuba ku amray annagana ka gobol banaadir ahaan diyaar ayaan u nahay waqti kasto iyo xilli kasto inaan kaalmadeeda aan la garab istaagno cid kasto dhibaataysan inta kadib isbitaalada waxaan farayaa inay dadkooda Soomaaliyeed ee ehelkooda ah ee dhibka xalay dhaca ku gaaray qaraxi xalay ku gaaray shalay ee ku gaaray dhaawac ku gaaray inaysan lacag weydiin ayaan amraynaa haddii dhaawac culus jiro ay maara waayaanna waa la isla xalinayaa laakiin dhaawacyada ay xalli karaan lacag ku xirinaan leenahay waxa kale oo soo gaaraysa ruuy baan waxay tamanaqaano baaritaan aan sameey doonaa kuwa dhiig shubaayay in lacag la weydiistaan waxaan ku arkaynaa meelaha ku arkaynaa arintaas haday run noqoto qof dhiig shubaayo oo dhiigiisa tabarucayo in lacag la weydiiyo aqliga caafimaadka qaba xataa ma ogola laakiin haday dhacday isbitaalkii sameeyay waa la xisaabtamayaa hadii ilaahay yiraahdo hadaysan jirin ma bajirtaba laakiin haday jirtana waa arkaynaa isbitaalada waa noqonina kuwa shabaab la mid ah ee dadka dhiigooda ka mushtaridi kuna noqonina ayaan leenahay ala kulli xaal aan iskaalmayno aan gurmano aan halka isugu tagno hadii ilaahay yiraahdo sidaas la mid ah burbur baasan ayaa dhacay waxa suuragal ah in burburka xataa hadda wax laga helo ama waxa suuragal dad masaakiin hantidooda inay meesha ku jirto waxaan leenahay cid kasto meeshaas hanti ka tiilay hadayba bad qabtay nooshahay waa inay sheegtaa si loo baaro idoo la isla joogo ciidanka ammaanka oo hay'adaha amniga waxaan leeyahay dadkaasi hal xaqiijiyo amnigooda maalkooda iyo maartay naftooda hal xaqiijiyaan leenahay dadkana waxaan leenahay loo fududeeyo hadii ilaahay yiraahdo oo hala shaqeeyo wayna dadaaleen runtii xalay ilaa iyo shalay soo taagnaayeen ciidamadu haddana wili waxaan leeyahay hawl ayaa idin sugayso intiba maartay naftan ugu wada jirtana hawshaasi way noo wada taalaa waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo annagoo is wada garabsanayno ka maamul gobol banaadir ahaan iyo dawladda iyo kulli iyo ganacsatada iyo dadka akhyaarta ah annagoo is garabsanayno inaan gurmad degdeg ah dadkeena u sameeyno